walaalayaal jannada iyo naarta dad baa loo abuuray. jannadana dad baa geli doona, naartana dad baa geli doona. waxa weeye ilaahay wuxuu tilmaamay fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir. waa la kala tegi doonaa. kooxna jannaday aadi doontaa, kooxna naartay aadi doontaa. ma garanaya aniga iyo adugu toona midkeenna meesha uu aadi doono, laakiin asbaab baa laynoo sheegay naarta looga badbaado. sababa lagu naar galana waa laynoo sheegay. nabigaa su'aal la weyddiiyo waxaa la yidhi jannada maxaa u badanoo lagu dhexlaayo lagu galaa? taqwa allaahi wa xusni alkhuluq, dabiica wanaag iyo alla kacabsi baa lagu galaa buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. naarta waxyaabaha lagu galana waxaa ka mida kibir iyo cadho, yaa ka mida kibir iyo isla weyni iyo xanaaq. kuwa ugu waaweynee ususha naarta lagu galaabay ka mid yihiin. hadduu qofku maanta qof ku dhagaroobuu dilo oo tidhaahdo war maxaa u dishay, saddexdaa midun baa haysay. ama wuxuu ka odhan waan cadhaysnaa, ama wuxuu ka odhan anoo nin sidaasa isagoo caynkaasa suu iila hadlay, ama wuxuu ku odhan muxuu isagu waxan iyo waxaan u haystayoonnu annagu u weynay. saddexdaa mid baa dhiig islaan qofka u geeya baa layidhi. xanaaqa iyo xasadka iyo waxa weeye kibirka, saddexdaasi waxa ugu badanee naarta lagu gala weeye. bal naftaada intaad xisaabiso. cumar wuxuu ku dhawaaqay uu yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu acmaalakum qabla an tuzinuu. bal camalkaaga miisaan intaan laguu miisaamin berri, bal naftaada xisaabi intaan berrita laguu xisaabinin. cumar baa yidhi maanta camal baynu haysannaa, laakiin bilaa xisaaba, cidina ku xisaabin mayso. waryaa adigu 5 salaadood baad tukateen iyo masaajidka miyaad ku waalan tahay? dee dadka kale u banneeyo orad naga tag, cidina ku odhan mayso. laakiin berri camal ma jira, xisaab baa jirta. waa la isla xisaabtami. waxaad shaqaysanoo lagu oggol yahay ma jiro. haddii walaalayaalow caawa habeen baynu joognaaye berri subaxdii qorraxdu dhinacaa ka soo baxdo, 10kii calaamo ee waaweynaa ee qiyaamada mid haddii la arko, ilaahay nafaan horay wanaag u samaynin towbad ka aqbali mahay. hadday naftu kurxinta soo gaadho ay halkan timaadana, ilaahay cidna waxba ka aqbali mahayaan horay waxba looga aqbalin. ilaahay wuxuu yidhi laysat الtawbatu liladiina yacmaluuna الsayi'aat xataa idaa xadara axadahum اlmowt. markay geeridu timid buu yidhi imminkaan towba keenaya. wala aladiina yamuutuun, kuwa dhimanaya wahum kufaar gaalnimo ku dhintay qabla tawba dhintayna, towba ilaahay agtiisa kuma laha. haddii naftu halkan ay isugu timaaddo, iyo haddii calaamadaha qiyaamaha ka mida la arko, iyo haddii la dhinto oo aan la tawba keenin oo qabla tawbatiba aad dhimato, tawbad heli maysid. laakiin maanta tawbadu way furan tahay. allah tawbadu maanta aniga iyo innaga iyo kulligan way noo furan tahay. qofkii muslimaba tawbada inoo furan 4 shardi bay leedahay. dembigaad gashay inaad ka dhex baxdo, inaad go'aansato dib inaadan ugu noqon, inaad ka murugooto dembigaa inaad gashay ka xumaato. 3daa shardi bay leedahay haddii dembigaad gashay adiyo alle keliya uu idinka dhexeeyey. mid afraad baa jirto oo lagu daro, haddii xaq bani aadam uu la socday ood bani aadam wax yeeshay, ciddaad wax yeeshay ka xalaasho. inta aan maanta xalaashigu waa adduunyo, waxaad odhan in adeero iska kay cafi, iska kaa cafi. camalkaagii loo qaadan mahay. xogaa xoolaabaan waa kaa qaatay si qarsoonoo khaldana, in adeero hooyo iska kay cafi. maanta adduunka waa xisaab, laakiin berrita waxaa la qaadanay camalkaaga weeye. camalkaagaa berri la qaadanaya. wuxuu idhi nebi moxamed, mufliska aniga ummaddayda miyaa taqaaniin? markaasay yidhaahdeen muflis waxaa la yidhaahdaa qofkaan lacagna haysan, alaabna haysan. wuxuu idhi aniga mufliska iyo waxmadhaqdaha iyo haamaanka iyo waxaan hagaagsanayna ummaddayda ku jira waa nin qiyaamada iman doona. wuxuu la imaan doonaa acmaalka amhaali iljibaal, buurahay la eg tahay camalladu la yimid. laakiin waxaa la keeni dad fara badan. kan wuu dilay, kanna wuu caayay, kanna wuu xantay, kanna wuu dharbaaxay, kanna waxbuu ku sameeyey, kanna caloolxumuu u qabay, mid walba dhibaatuu u geystay.
xasanaadkiisa loo gurayaayo midba in la siinaya kana wanaagiisa laga qaaday in baa la siin kana wanaagi laga qaaday baa in laga siin kana khayrkiisa in laga siin kana amalkiisa wanaagsan baa in laga siin amaladii buurta oo kala ahaayuu la yimid meesha fa in funiyat xasanaatu haddii camalkiisu dhammaado iyagaa xumaantooda laga soo qaadi oo isaga dusha laga saari dabadeedna naartaa loo jiidi buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam naartu xumaanahay leedahay waxaa ka mida qur-aanku wuxuu tilmaamay uma fii silsilatin darcuhaa 70 diraacan faslukuuh waxaa lagu cadaabi waxaa ka mida silsilada naara afka inta lagaga rido dabada intay ka boodaan oo wixii caloosha kaga jiray oo dambasa uu xagga dambe ka sii daayo inuu malag awood badani labadeeda af isku xidho silsiladda dabadeedna sida bahasha ciyaalku ay ciyaaraan uu saa u warfiyo dabadeedna laga hadliyo oo uu yidhaahda yaa haadaa malaggiyo irxamnii warii naxariiso war sidan ha ii gelin dadkaad maanta calooshaa laga haya oo maxaa kaga dhacay aantuu beriis cunay calooshiisu ma taqaana qamadinka habeenkii la cuno calooshiisu ma taqaana digir buu la seexan waayo caloosha la qabsaday silsilad naara markii loogu rida maxaad u malay ma iska xajin kartaa aday kula tahay calooshii u xanuunsatay waxay cuntay oodna iska daa ka weyday silsilad naarahoo 70 mitira oo ololaysa haddii afka lagaga tuuro caloosha inta ku jirtaa dib ka daadata maxaad u malayn xanuunka intuu leegyahay markaa irxamnii buu odhan warkana uu ii naxariiso markaasuu odhan kayfa arxamuka waarxamu raaximiina maa yarxamak ilaahay naxariista badnaa waad naxariis ka weyday aniga maxaan kuu naxariistaa buu leeyahy aniga waxaaba la ii soo diray buu hi adiga inaan ku cadaabo keliya shaqadayduba waa inaan ku ciqaabo adig amarkaasaa inaga dambeeya naar iyo janna inaga dambaysa acmaasheennina garan mayno meelay ku dambayso aan isxisaabinno aan isla soconno aan dib isugu noqonno aan diinta baranno aan masaajidda u dadaalno aan masaakiinta quudinno ilaahay wixii agtii aan ku raalli gelin lahayn aynu la nimaadno